السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمركل السوداء واضح آدي هذا ومهد سنتهين ما أنت قبل هذا مريكن كقيبة كم إذا واحد كذا عيي دور الشوين كلا دوان وحلا قلت ترتمي ما يرو مهمة سيد نيويورك هي مينيابوليس واللبنان أو مسلمين أو مت كم إذا الصومالية هي كنت ترتميين وحجري قبل هذا سيد وكلنا نيوجيرسي فرجينيا إن قدوميها قبل كلا قلت ترتميو ريبابليكان كي ديمقراطيين تأسكو هيين sidoo kalena xeerlaaliyaha guud ee gobolka Virginia waa lagu tartamayay Republicanka saddexdaasi gobolba waa looga adkaaday iyo waliba gobolka magaalada New York oo maayarkeedii Zoran Mamdani oo Trump uu aad u necbaa isla markaana nacaybka uu ninkaasi necab yahay darteed uu u taageeray nin horey dimuqraadi u ahaan jiray laakiin hadda ku tartamayay si madax bannaan waa looga guuleystay Minneapolis tirintii codadka hadda waa ay socotaa وانا لا اسكو دو يحي codadkuna waa isbedbedelayaan mar Umar Faatix ayaa sara maraya marna Jacob Frey ayaa sara maraya bal sida loogu kala guuleystay goboladaasi ayaan idin la wadaagaya marka hore Minneapolis aan ku hormaro Minneapolis goordhow ayay tirinta codadku bilaabatay waxaana la tiriyay 5% codadkii aad ayaana la isugu dhow yahay mararka qaad waxaad arkaysaa ilaa iyo 5,000 oo cod ayaa hadda la tiriyay codad ku dhow marka Umar Faatix ayaa mar sara maraya marna Jacob Frey ayaa sara maraya oo doonaya markii saddexaad inuu ku guuleysto maayarka magaalada Minneapolis Soomaali fara badan waa ay soo baxeen maanta waa ay codeeyeen marka balaynu aragno natiijadaasi halka ay ku dhamaato tirinta codadku wali waa ay socotaa Jacob Frey iyo Umar Faatixna aad ay isugu dhow yihiin natiijada marka ay soo baxdo waan idin la wadaagi doonaa balse New York aan aado New York ninka asal ahaan Hindi u dhashay oo muslimka Zoran Mamdani ninkan sanad ka hor lama aqoonin dawladda hoose ee New York ayuu ka tirsanaa hal mar ayaa 4 bilood ka hor markii uu ku soo baxay doorashooyinkii isla reebka ayaa laga war helay waxa uu yiri aniga nin dimuqraadi oo xisbiga dimuqraadiga oo socialist ayaa qaar waxay leeyihiin waa shuuci waa communist Trump xitaa waxa uu ku soo qoray maanta bartiisa Truth Socialka qof kasta oo yahuuda kulaha oo u codeeya Zoran oo isagu is cadeeyay inuu yahuuda nacab yahay qofkaasi waa stupid ayuu ku soo qoray Trump xalay sidoo kale waxa uu bartiisa Truth Social ku soo qoray in uu taageerayo ninka la yiraahdo Andrew Cuomo oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsanaa jiray Trump nacayb uu nacab yahay ninkaasi muslimka ee Zoran Mamdani waxa uu taageeray nin xisbiga dimuqraadiga ka tirsanaa jiray laakiin hadda si madax bannaan u tartamayay ninkan Andrew Cuomo gudoomiyaha gobolka ayuu ahaa xilligii coronavirus-ka uu jiray New York ayuu gudoomiye ka ahaa kadib markii qaar kamid ah haweenkii la shaqeynayay ay ku eedeeyeen faraxumo iyo inuu taataabtay ayuu iscasilay hadda ayuu siyaasadda dib ugu soo laabtay waxa uu doonayay duqa magaalada New York inuu noqdo marka Trump nacaybka uu nacab yahay ninkaasi Zoran Mamdani darteed ayaa waxa uu taageeray ninkan Andrew Cuomo waxa uu yiri ma jecli Andrew Cuomo laakiin intii loo codeyn lahaa uu soo bixi lahaa Zoran Mamdani waa in loo codeeyaa ayuu yiri ninka la yiraahdo Andrew Cuomo ninka loo Republican waa tartamaya marka Zoran Mamdani ayaa hadda soo baxay 49.6% magaalada ugu weyn Mareykanka oo la yiraahdo magaalada aan laga seexan oo habeen iyo maalin laga soo jeedo ayuu ku guuleystay maayarka waa nin muslim ah oo Uganda ku dhashay isla markaana hadda isaga ayaa maayarkii noqday Andrew Cuomo wuxuu helay 41.6% Curtis Sliwa 7.9% ayuu helay marka halkaas Republicankii waa looga adkaaday Trump xitaa waxa uu yiri waxaan joojinayaa lacagta ay dawladda federaalku ay siiso magaalada New York hadii Zoran Mamdani uu ku guuleysto arintaasina Zoran Mamdani wuxuu yiri inagu waan garanaynaa si lacagaheena aan dawladda federaalka aan uga raadsano dhinaca gobolada New Jersey iyo Virginia iyagana waxa ka jiray doorashooyin gudoomiyaha gobolka oo aad loogu tartamayay oo Republicanku ay doonayeen inay ku guuleystaan doorashooyinkan maanta dhacaya waxa ay tusaale u yihiin doorashooyinka xilliga dhexe ee la filayo November xilligan oo kala sanadka soo socda ee 2026 dhamaadkiisa inay dhacaan Congress-ka aqlabiyadiisa ayaa lagu tartamaya labada aqal ee aqalka hoose iyo aqalka sanadka Trump waxaan ognahay wadanka markii uu qabtay shaqaale fara badan ayuu shaqadii ka ceyriyay waxyaabo fara badan dadkan tarxiilka uu ku hayo marka arrimo fara badan ayuu sameeyay oo dadka la leeyahay way uga soo horjeestan karaan marka labadaasi aqalna haduu lumiyo doorashooyinka xilliga dhexe saameyn weyn ayay ku yeelan doontaa in labada sano ee uga harsanan xilka madaxtinimadiisa uga harsanaan doonto marka New Jersey waa looga guuleystay Republicankii Mike Sherrill
ayaa ku guuleysatay gudoomiyaha gobolka New Jersey waxaana ay ku guuleysatay 57% Jack Catrelli oo Trump uu taageero Republican ah 42 ayuu helay 4% waa looga guuleystay gobolkaasi Virginia sidoo kale waxaa ku soo baxday Abigail Spanberger oo noqonaysa haweeneydii ugu horeysay ee taariikhda gobolkaasi ka noqota gudoomiye gobol Congress-ka ay hore uga tirsanaan jirtay ciidamadana waa ay ka tirsanaan jirtay sidoo kalena waxay noqonaysaa gudoomiyihii 75aad ee gobolka Virginia 54.8 ayay ku guuleysatay sidoo kale waxa ay ka guuleysatay haweeneydii hore u ahayd gudoomiye ku xigeenka oo la yiraahdo Winsome Earl Sears oo haweeney madow ah Trumpna uu taageeray ayay ka guuleysatay marka Trump caawa guul darro ayaa u soo hoyatay dadkii uu taageeray oo dhanba waa laga adkaaday 45% ayay heshay Winsome Earl Sears sidoo kale waxaa jirtay in lagu tartamayay xeraalyaha guud amaba gobolka Virginia waxaana looga guuleystay mar kale Republicaankii oo Jay Jones ayaa ku guuleystay 51.6% ku guuleystay halka Jason Miyares oo Republican ahaa 48% uu helay marka dhammaanba goboladii lagu tartamay Republicaankii waa looga guuleystay arintaasi waxay cadeynaysaa doorashooyinka xilliga dhexe dhamaadka sanadka soo socda ee 2026 November marka la gaaro Republicaanka howl ayaa u taala hadda dawladii maanta 35 maalmood ayaa u buuxsantay muddadii ugu dheereed oo dawladdu ay xirnayd maanta ayay la simantay bari oo Arbaca ah haddii dawladdu ay sii xirnaato waxay noqonaysaa in 36 maalmood muddadii ugu dheereed ee dawladda Mareykanka shaqadeedu ay hakad ku jirto 14 jeer ayay sanadku u codeeyeen sharcigii dawladda lagu furi lahaa oo aqalka hoose ay meel mariyeen xubnaha dimuqraadiyiintuna waa ay diideen hadda marka waxa la leeyahay labada dhinac oo sanadka Republicaanka iyo dimuqraadiyiinta xubno ka tirsan ayaa xal raadinaya bal sidii dawladda dib loogu furi lahaa maxaa yeelay waxyaabo fara badan ayaa isku cakiran waa dadkii kaarka cuntada la siin jiray waa tii kaarkii uu ka go'ay waxa ma arkaysaa Mareykanka hadda dadkii waxay cunto inay helaan ay leeman u galayaan goobaha cuntada ciriinka ah laga bixiyo oo food banks la yiraahdo subaxdii waxaad arkaysaa gawaari line dheer ku jirto ilaa iyo dhowr mayl ah dadkaasi waxay doonayaan halkaas inay cunto ciriina oo ay karsadaan ay ka qaataan marka xaaladaasi ayaa Mareykanka ka taagan dad badan oo Afrika jooga hadii la yiraahdo dad Mareykan ayaa hadda 35 maalmood ee la soo dhaafay line maalin kasta u galayay inay cunto ay karsadaan ay helaan arintaas waxa laga yaabaa inay la yaab la noqoto laakiin ma ahan Mareykanka goobihii cuntada food banks la yiraahdaa dad ayaa lacaga ay ku deeqaan oo ay soo ururiyaan ayaa cunto lagu soo gadaa kadib ayaa qofkii u baahan la siiyaa hadda waxa ay leeyihiinba goobihii cuntadaasi laga bixin jiray ma hayno cunto dambe aan bixino maxaa yeelay dadkii dawladdii waa ay xiran tahay dadkii dawladda u shaqeynayay muddo bil ah ma aysan helin wax jeeg ah oo dhinaca dawladda uga yimaado marka waxa ay doonayaan inay halkaas cunto ka soo helaan marka arintaasi ayaa jirto reer Afrika ma rumaysanaysaan laakiin dad ayaa subax kasta waxa ay leen u galaan oo waliba saacado ay taagnaadaan in ay helaan cunto ciriin ah oo la siiyo oo qudaar iyo waxyaabo kale si ay gurigooda ay ugu karsadaan marka arimahaasi hadda goboladii ugu muhiimsanaa sida New Jersey iyo Virginia Republicaankii waa looga guuleystay Mamdani New York waa uu ku guuleystay oo waxa uu noqday ninkii ugu horeeyay oo muslina oo mayor ama duq magaalo ka noqda magaalada ugu weyn Mareykanka oo ah magaalada New York ninkaas waliba sanad ka hor lama aqoon anigu hadda waxa aan bartayba markii uu ku soo baxay doorashooyinkii Israareebka oo 4 bilood ka hor ahayd ayaanba ninkan bartayba Mamdani la leeyahay hal mar ayaana lagu baraarugay waana nin hadal yaqaan ah oo sidii Obama oo kale uu u soo baxo waa nin hadal yaqaan Obama xitaa 2 maalin ka hor ayuu la xiriiray oo waxa uu taageeray oo uu u hambaliyay sida ololihiisa doorashada uu u waday marka sidoo kalena xeraalihii Virginia waa looga guuleystay hadda Minneapolis ayaan sugaynaa iyo waliba gobolka California oo iyaguna 5 xubnood oo dimuqraadiyiinta Republicaanka ahaa isla ay doonayeen in red district ay ku sameeyaan sidii Texas ay sameeyeen oo iyaguna u codeynaya Prop 50 ha iyo may uu kala codeynayay in shantaasi in degmo Republicaanka laga soo dooran jiray hadda laga doorto in xubno dimuqraadiya marka doorashada dhinaca Minneapolis Umar Fatix iyo Jacob Frey wali tirinteeda waa ay socotaa labaduna aad ay isugu dhow yihiin sidaad aragtaan codadka marba mid ayaa sare maraya tirinta codadku waa ay socotaa aadna waa la isugu dhow yahay waxyaabaha ka soo kordho waa dila soo socodsiin doona haddii alla idmo aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo